السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يال كسو دوادا قلبي فرن كسو دوادا جنالكا بندقة دودا تضبعد والله بحدو بويني إدمه وحاد كلاسو عندون تا مالمها سنينتا تلادادا يا أربعادا حيركا سومالي دي هوري oo halkan aan idinku soo gudbin doono anigoo ah Fuad Qabyaladeed. haddaba aan guda galle xeerka Soomaaliyeed wuxuu ahaan jiray mid aan qorneen waayihii hore hase ahaatee kama duwaneen mid qoran shay walibana wuxuu lahaan jiray qodob u gaar ah oo lagu qaado marka uu yimaado dib wax walibana waxay lahaan jireen xeer u gaar ah. xeerka waxaa goon jiray duqowda ama akhyaarta deegaankaas ka arrimisa sida duubabka salaadiinta wabarada iyo ugaasyada waxaana lagu goon jiray xeerka shirweyne ay ka qayb galaan dadweynaha deegaanka gobolka ama degmadaas waxaana lagu qaban jiray shirkaas tuulooyinka ceelasha biyaha ama goobaha ay biyuhu fariistaan sida balliyada. xeer walba waxaa lagu magacaabi jiray meeshii lagu shiray markii la goynayay taasoo la dhihi jiray tusaale ahaan xeerkii gudundo xeerkii hareeri hooseel xeerkii cakaaro iyo wixii la mida. haddaba jaadadka ama noocyada xeerarkii Soomaalidii hore ay u kala bixi jireen ayaynu markan si guud u gudmari doonaa. Soomaalidii hore waxay u yeeli jirtay wax la arko xeer gaar ah iyadoo la tixgelinayo markasta caadada iyo dhaqanka la xiriira waxa uu ku saabsan yahay xeerkaas. sidaas daraadeedna waxaa jiray xeerar fara badan oo kala jaad ah kuwaas oo kala ah xeer magaalo, xeer beeraley, xeer gedisley, xeer dibad guuraa, xeer dhalinyaro, xeer geeley, xeer lo'ley, xeer ariley, xeer araxeed, xeer colaadeed, xeer fardooley, xeer bulsho, xeer guur iyo xilo iyo xidid, xeer suugaaneed iyo xeer ergo. xeerkaas oo dhan mid waliba markii la galayo arrin ku saabsan wixii loo dejiyey ayaa lagu qaadi jiray isla markaasna waxay u qaybsami jireen xeer ciqaabeed iyo xeer madani. xeer ciqaabeed waxaa la yiraahdaa xeerka lagu qaado qofku markuu uu dambi galo sida tuuganimo, dhac, boob ama inuu gabar kufsado. xeer madani waxaa la yiraahdaa xeerka wax lagu qaybsho marka laba ruux wax iska qaadaan ama isku qabsadaan ama ay deyn isku sheegtaan. isla markaasna xeer kasta ciqaab iyo madani midku doona ha ahaadee wuxuu lahaan jiray hab u gaar ah oo loo qaado marka la galayo dood ku saabsan. haddaba daawade haddii aad jeceshahay in xeer Soomaaliga hore wax badan inaad ka baratid kana fahantid noloshaadana aad ku dabaqtid waxaan ka codsanaynaa inaad ku soo biirtid channelka bandhiga doodaha adigoo subscribe saaranaya. Brit oo talaada ah ayaanu geli doonaa xeerka ugu horeeya oo ah xeer magaalo isagoo faahfaahsan aadna u xiiso badan tan iyo intaynu kulmi doono berito. waa saaxiibkiin Fuad Qabyaladeed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.